munaasabadan sida weyn loo soo agaasimay waxa ka soo qayb galay salaadiin mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee gobolkan xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmadan Boorama waalidiin iyo arday waxaana munaasabadan lagu sagootinayay dufcadii sagaalaad ee ka qalin jabisa fasalada 8aad ee dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Umar bin Khadaab ee ku yaala Boorama waxaana lagu qabtay hotelka Maana Guest House ee magaaladan Boorama munaasabadan ayaa waxa ugu horeen ka hadlay maamulaha guud ee dugsiyadaasi Umar bin Khadaab ee Boorama ku yaala mudane Abduwahab Abdullahi Aadan Boos waxa uu ka warbixiyay heerarkii kala duwanaa oo soo maray dugsigan iyo ardayda sanadan ka qalin jabinaysa fasalada 8aad ee dugsiga dhexe imtixaanaadka shahaadiga dugsiga Umar bin Khadaab uu ku leeyahay waa taariikh ku camiran ama ay ka buuxdo sharaf aad u badan 2005 laga soo bilaabo waqtigaas ilaa sanadkii ugu dambeeyay ee 2011 waxa ay kaalin hormoodnimo ardaydaasi ku lahaayeen cid waliba ay og tahay waxay kaalin hormoodnimo ku lahaayeen gobolka iyo guud ahaan dalka waxa markaasi ardaydana nooga fadhinaa in ay doorkoodii iyo sidii ardaydoodii hore ay sameyn jireen dadaalkii faraha badnaa ay la yimaad jireen inay iyaguna ay la yimaadaan sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar kamid ah waalidiinta iyo ardayda wax ka barata dugsigan waxaana hadaladooda kamid ahaa نشكر أولا سعادة المدير أستاذ عبدوهاب عبد الله آدم وجميع أساتذتنا الكرام ونشكر أيضا ولا ننسى مكانهم الوالدين المحبين ونقول لكم لا نكمل شكركم وقدركم في كلمات فقط. Because as Somali prophet says, the man who makes some more effort in reaching Hajj Abbas will be passed. So that just all today, Umar bin Khattab become a leader in scholars which exist in Burma, our readers. Why school can tell this? lagama sheekayn karo waxa ku cadaynaysa oo ku bayaanaysa ardayda maanta halka luqadii af Soomaaligeeni luqadii af Carabiga ay la aakhirayna anfacaysay luqadii afka qalaad ee Ingiriisiga gabadhaana ka hadlaysay sida barta ka hadlaysay inta luqadooda ku hadlayeen nidaamka quruxda gabagabadii munaasabadan waxa hadallo ka jeediyay Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dhawel oo kamid ah salaadiinta waaweyn ee goboladan maayarkii hore ee Boorama Xuseen Cawaale Warfa xildhibaan Cabdi Cusmaan Dhagaweyne oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadan Boorama iyo ka socday wasaaradda waxbarashada ee gobolkan mudane Xasan Ayas Subagle waxayna dhamaantood u mahadceliyeen maamulka macallimiinta dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Umar bin Khadaab ee Boorama ku yaala iyagoo sheegay in dugsigan uu kamid yahay dugsiyada waxbarasho ee horumarka dhanka waxbarashada ku soo kordhiyay Boorama isla markaana ay ka aflaxeen arday aad u tiro badan oo xilligan wax ka barta dugsiyada sare iyo jaamacadaha Boorama iyo guud ahaan Somaliland ku yaala ka kawsalahan ama dawlad hoose ah waxaan wixii waajibkaygu ahaa waan la qaban doonaa waan garab taaganahay waan u mahad celinayaa qiimaha iyo halka gaarsiiyeen ubadkoodii oo dadkan tahriibinayso oo dhulkayna qabsato doon sama ku soo dhacaysa way wax la aqbali kara maaha 13 jir iyo 14 jir waxaan dhaamiyay inay tahriibaan oo ila shaqo raadinaya sidii ninkii horeeyay lahaa isagoo wax ku shaqaynaya ma jiro tamar ku shaqaynaya taaliyaana jirin ee magaraysa waxa qor ku shaqaynaya jirin waa shaqo raadinaya oo mid la fahmi karin weeye waxaan sheegaynaa waraasadka aad leedihiin ilaahay dhulka inaga dejiyay ee leedihiin maanta wax ku leedihiin ee la doonay wax ka soo saartaan ee qayb ilaahay niisiyo oo kala joogtaan way ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynayaa sidii dadkii ka horeeyay sanadkii hore ay ugu soo macaanka hooyeen guulo la taaban karo dugsiga Umar bin Khadaab inaad idinkuna ardaydiina imtixaanka shahaadiga ee dugsiga fasalada 8aad diyaar ka ah inaad maxaan ku idinkuna guul saas oo kale soo hoysaan محمد محمد الله نكي دلانا حاج عباس وقارا ودا دافا ما أنت إمكانيات أردن وضعيتها إلا إنترنت ما دور سريو مجري وإن لا دلت فرسمدو إني إن لا دلت هذا تيبا هو إنك هو كايزتها فرسمدي إن لا دلت يا هذا هو إنك كايزتها عبد الفتاح أحمد هروناج نيوز مقالة بورما.